kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qaybtan waxaynu ku eegi doonaa haddii Eebweyne uu idmo wararkii iyo macluumaadkii degdega ah ee ka dhacay gudaha dalka waxaynu ku eegi doonaa dal weyn oo ku soo biiraya aqoonsiga Somaliland iyo shacabka Hargeysa oo u diyaar garoobaya dabaaldeg weyn dalkan si lama filaan ah ayuu aqoonsiga ku siinaya Somaliland madaxweynaheeda iyo Cabdiraxmaan Cirrana way kulmi doonaan yay tahay cidda fududeynaysa wararkii ugu dambeeyay ayaynu eegi doonaa wax kale oo aan halkan ku eegi doonaa aqoonsigii Somaliland kadib Djibouti waxay wajahaysaa muujado siyaasadeed iyo kacdoono waaweyn kulug lahaanshiyaha arintaasi ayaan rabaa inaan halkan ku falanqeeyno wax kale oo aan idin soo gudbin doonaa howlgalka dhinaca badda ah ee Turkiga oo go'aano xasaasi ah laga gaaray xilli Soomaaliya ay u diyaar garoobayso dagaal cir iyo dhul iyo bad intaba isugu jira oo ay ku difaacayso midnimadeeda waxaan idin soo gudbin doonaa muxuu yahay go'aankan xilligan xasaasiga ah ee dhinaca howlgalka badda ah ee Turkiga la gaaray haddii aad igu cusubtiina ku soo biira barti YouTube channel-ka aad naga daawanaysaan ee warsan news waxaad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran warar warbixino muuqaal aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino saaxiib daawade aragtidaada qaybta faalada ama commentiga ayaad kaga soo dhiiban kartaa muuqaalkanna la wadaaga saaxiibadaada si ay kula daawadaan qaybta like-tan ha ka iloobina si aynu u helno saaxiibo sidaada oo kale u qalbi wanaagsan hagaagkan ku bilaabo dal weyn ayaa ku soo biiraya aqoonsiga Somaliland waxaase jirta in shacabka deegaanada Somaliland gaar ahaan Hargeysa ay durba bilaabeen diyaar garowga dabaaldegyo waaweyn waxaana jirta in dalkan madaxweynaheedu uu la kulmi doono Cabdiraxmaan Cirro oo imika safar dhinaca dibadda ku maqan yay tahay cidda fududeynayso aan isdul taagno qodobkan oo si gaar ah ay dadku uga wardhoorayaan isla markaana ay isha ku hayaan dalalka ku soo biiraya aqoonsiga Somaliland tan iyo markii ay Israa'iil ay u aqoonsatay Somaliland dal rasmi ah kana madax bannaan Soomaaliya inteeda kale macluumaad iyo warar laga soo tabinayo socdaalka madaxweyne Cirro ee dhinaca dalka dibaddiisa ayaa sheegaya in Israa'iil ra'iisul wasaareeda Netanyahu uu cadaadis ba'an uu ku saaray dowladda Mareykanka uu hogaamiyo Donald J. Trump inay aqoonsato Somaliland isla markaana wadaxaajood rasmi arintan uu kala furay inta uu socday kulankii uu la qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump Netanyahu kulankaas oo warbaahinta laga qariyay xogta iyo macluumaadka ku saabsan wadahadaladoodii ku qotomay in aqoonsi la siiyo Somaliland ayaa imikan soo ifbaxaya Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha Somaliland oo dhawaan la filayo inuu gaaro Tel Aviv ayaa qorshuhu yahay in wada hadal toos ah ay yeeshaan isaga iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump waxaana la diyaariyay qidadii iyo qorshihii uu Trump ugu dhawaaqi lahaa in Somaliland ay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale warbaahinta Israa'iil ayaa tabinaysa in kulankan uu noqon doono mid wada hadal ah ama mid toos ah oo ay suurtagal tahay in Trump uu soo safro Tel Aviv macluumaadka kale ee soo baxaya ayaa sheegaya in Netanyahu uu si dhab ah uu doonayo inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii uu sameeyay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ee ahayd in dunida uu kala gadayo aqoonsiga Somaliland saacadii ugu dambeysay waxaa jiray in diyaar garow xoogan oo la xiriira abaabulka arintan loogu dabaaldegayo ay si toos ah uga soo ifbaxday magaalada Hargeysa ee caasimaddu waa Somaliland 72 saac ee soo aadan ayuu qorshuhu yahay in warkan weyn warbaahintu ay daaha ka qaado qalinkana uu ku duugo aqoonsiga Somaliland madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump waa dabarjab cusub iyo loolan cusub oo dhinaca diblomaasiyadda uu wajihi doonto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo marka la eego tan iyo markii ay Israa'iil ku dhawaaqday dhabaha aqoonsiga Somaliland walwal iyo walaac xoogan ka qabtay in dalal kale oo dhowr ah kuwooda ugu quwada weyn ay qaadaan dhabaha ama ay ku dhiiradaan qaadista dhabaha aqoonsiga Somaliland taas oo ay dowladdu u arkayso in dabarjab weyn ay ku tahay midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa dhowr jeer hore fagaarayaasha ka weeraray Soomaaliya isagoo oo ku tilmaamay in Soomaaliya aysan ka jirin wax dawlad ah isla markaana aysan lahayn booliis isagoo oo sheegay in Soomaaliya ay qashin tahay sida uu ku dooday Trump waxaase warkaasi mara awaal iyo mid la yaqiiqsiyoodo ku tilmaamay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya
xasan sheekh maxamuud oo si adag kaga falceliyay hadalka Donald J Trump xubno ka tirsan golaha aqalka cad isla markaana u ololeynaya in aqoonsi ay hesho Somaliland ayaa dhawaanahan ku cadaadinaya waxaase uu sii kordhay cadaadiska iyo shuruudaha adag ee Netanyahu uu ku xirayo arrintan ee ah inuu hirgeliyo dowladda Mareykanka ayaa kol hore si dadban uga hadashay aqoonsiga Somaliland iyadoo oo war aan sharaxaad badan laga bixin isla markaana mudmadow badan uu ku dhex jiray ee ka soo saartay aqoonsiga ay Israa'iil siisay Somaliland 26 December sanadkii hore 2025 Netanyahu ayaa doonaya in dowladaha ugu quwadda weyn ee dunida imikan uu si toos ah ugu xiro Somaliland isla markaana ay u aqoonsadaan dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale waxaase Cabdiraxmaan Cirro oo socdaalkiisa Tel Aviv uu kala soo laaban doonaa guulo wax ku ool u ah shacabka deegaanada Somaliland oo rajo buuxa ka qaba in uu si toos ah ugu hirgeliyo rajadoodii 34 sano ugu dambeysay ay ku riyoonayeen in mar un ay noqdaan dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale haddii aynu eegnana isla aqoonsiga Somaliland waxa uu Djibouti u horseeday jahwareer siyaasadeed oo xoogan iyadoo oo Djibouti ay wajahayso muujado kacdoon iyo qalalaase ka aloorsan gudaha dalkaasi tani markii ay Djibouti ay si toos ah dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu garab istaagtay qadiyadda ilaalinta madax bannaanideeda waxa ay wajahaysaa isla markaana ay ka soo horjeesatay aqoonsiga Somaliland muujado siyaasadeed oo xoogan iyo abaabul hubeysan oo gudaha dalka Djibouti ka dilaacay canfarta ayaa waxa ay dagaal adag oo ay toos ah uga soo horjeesteen madaxweynaha dalka Djibouti waxa ay ka sameeyeen gudaha dalka Djibouti iyadoo oo Somaliland laga taageeray xasradan iyo qalalaasahan cusub ee ka soo ifbaxay dalka Djibouti oo ay ku tilmaamtay in Somaliland dadka reer Djibouti looga baahan yahay inay iska dulqaadaan waxay ugu yeereen heerida Ismaaciil Cumar Geelle oo ay warkaan cadawga koowaad ee Somaliland imikan leedahay amaba ay wajahayso macluumaadka iyo wararka soo baxay ayaa sheegaya in arinta kacdoonka gudaha Djibouti ay ku lug leedahay Israa'iil oo dhaqaale fara badan ku bixinayso iyadoo oo kanaalka loo soo maray arintan ay noqotay Somaliland oo xubno ka mid ah xukuumadda Somaliland ay arintan ku wajaheen in gabi ahaanba laga joojiyo amaba laga cancel gareeyo guud ahaan dalabka baasabooro ay hore Djibouti uga dalbadeen Djibouti ayaa waxa ay u aragtaa qalalaasaha gudaha dalkeeda inay iska kaashanayaan Israa'iil iyo Somaliland waxaase ay u muuqataa in Djibouti lagu cadaadinayo sababta ay uga soo horjeesatay aqoonsiga ay Israa'iil siisay Somaliland isla markaana Djibouti waxa imikan wajahaysaa muujado siyaasadeed oo xoogan waxaase loo arkaa talaabadan haddii ay sii socoto in ay dhabaha u xaareyso in cimrigiisa siyaasadeed uu soo koobmo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kol hore amray markii ay soo ifbaxday aqoonsiga Somaliland in guud ahaan albaabada la isugu dhufto xafiiskii ay Somaliland ku lahayd magaalada Djibouti ee dalka Djibouti iyo sidoo kale in la xiro xadka ay wadaagaan labada dhinac isla markaana aad loo adkeeyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u arkaa aqoonsiga ay Somaliland ka heshay Israa'iil mid amniga dalkiisu khatar weyn ku ah iyo guud ahaan geeska Afrika waxa uu tilmaamay in haddii ay ku eegtaan dhabaha ay Somaliland ay aqoonsiga imikan ku heshay ay muujadaha siyaasadeed oo xoogan ee ka dhasha ay guud ahaan geeska iyo dalkiisu ay saameyn doonto uu kol hore uu ka baaraantigay in loona baahan yahay in gabi ahaanba si buuxda loo garab istaago dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si ay u difaacato midnimadeeda iyo qadiyadeeda jiritaanka markan haddii aynu eegnana howlgalka dhinaca badda ah ee dowladda Turkiga ayaa go'aan degdeg ah laga gaaray wararka ka imaanaya Turkiga waxay sheegayaan in baarlamaanka dalkaasi la horgeeyay codsi la xiriira in muddo kordhin loo sameeyo howlgalka dhinaca badda ah ee dowladda Turkiga ay ka sameynayso gudaha Soomaaliya waxa codsigan gudbiyay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo sheegay in Soomaaliya xilligan ay u diyaar garoobayso difaac dhinaca badaha cirka iyo dhulka laga maarmaanna ay u tahay in loo kordhiyo muddada sii joogistooda ciidanka
xeebaha ilaaliya isla markaana ay doorkooda la xiriira ilaalinta madaxbannaanida Soomaaliya ay qaataan baarlamaanka ayaa dood adag arrintan ka yeeshay waxaana ugu dambeyn ay go'aamiyeen in loo kordhiyo muddada sii joogistooda oo ku eg bishan marka ay laato hase ahaatee lagu daray sanad dheeri ah oo la xiriira fulinta howlgallo culus oo la xiriira inay ilaaliyaan midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya oo imikan wajahaysa muujado siyaasadeed oo ka dhashay aqoonsigii ay Somaliland ka heshay Israel ayaa imikan baahi weyn u qabta garab istaagga dowladda Turkiga ee dhinaca difaaca badaha dowladda Turkiga ayaana door muuqda iyo dadaal badan ku bixinaya sidii uu gabi ahaanba uu kaga hortagi lahaa dhaqdhaqaaqyada dhinaca badaha ee Soomaaliya la xiriira ay Israel isku dayi karto xilligan xasaasiga ah iskastaba ahaatee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaana baarlamaanka Turkiga kaga mahadceliyay inay ajiibeen xilligan xasaasiga ahna go'aan adag ka qaateen kordhinta howlgalka dhinaca badda ah ee dowladda Turkiga waad ku mahadsantiin ilaa gunaanadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarteen waan idinkaga mahadcelinayaa daawadayaasheena qiimaha badan oo wixii macluumaad ah iyo warar ah soo kordhana waxaad ku daawan doontaan wararkeena kuwan xiga haddii ay weyn ugu qadaro nabadgelyo